بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دليشو ومن دي لبا أفله مرارك قار waxay ka caawinaysaa inaad hagaajiso noloshaada iyo shaqadaada. Marar kalena waxay kugu keeni kartaa niyad jab iyo inaad ka cabsato barashada iyo soo bandhigida waxyaabaha cusub. Waayaan jaamac Nuuxayaan Dhalad iyo mowduuc kale oo ku saabsan dhisidda nafta iyo barashada la macaamulka dadka ku soo dhawaada. Inaad ka falceliso dhaliisha lagu soo jeediyo waxay ku xiran tahay 3 qodob. qodobka koobaad saxnimada dhaliisha. Micnaha marka horeba waxaan lagugu dhaliilayaa ma jiraan oo ma yihiin wax sax ah mise waa wax aan xaqiiqi ahayn. qodobka labaad habka loo gudbinayo dhaliisha. Laga yaabaa in dhaliishu saxan tahay laakiin uu qofku u maray wada khaldan sida inuu ku maagay oo hab kulul adeegsaday. sidaas darteed waa in adeegtaa inuu hab wanaagsan adeegsaday qofku iyo inuu si asluub leh ku dhaliilay. qodobka saddexaad ujeedada laga leeyahay dhaliisha. Micnaha qofka ku dhaliilaya waa maxay niyadiisu. dhaliisha ma waxa uu uga jeedaa hagaajin iyo sixitaan mise ujeedadiisu waa inuu ku niyad jabiyo oo hoos ku dhigo. haddaba hadba sida ay yihiin 3daas qodob ayay ku xidhnaan doontaa sida aad ula dhaqmi doonto. intaas haddii aynu isla fahanay aynu ka sii gudubno. xaaladda koowaad haddii lagu dhaliilo oo 3daas qodobba sax noqdaan. dhaliishu mid jirta tahay habka lagu dhaliilay mid asluubaysan yahay sidoo kalena ujeedada dhaliishu tahay mid wanaagsan. markan oo kale waxaad samaynaysaa inaad u mahad celiso qofkaas maadaama uu yahay qof u sabab noqon kara inaad wax badan ka bedesho habdhaqankaaga. midna niyadda ku hay laga yaabaa inaad ka diiqadooto ama dhibsato dhaliisha qofkaas maadaama uu kuu sheegay waxaanad hore uga fiirsan. micnaheedu ma aha inaad xanaaqdo oo maagto qofkaas. xaaladaas aynu soo sheegnay waxa cagsi ku ah mar dhaliishu khalad tahay habka loo marayna khaldan tahay sidoo kale ujeedaduna tahay mid xun iyo in lagu niyad jabiyo. markan oo kale xalku waxa weeye inaad iska indhatirto gebi ahaanba dhaliishaas sababtoo ah u jawaabis dhaliisha noocan ahi waa dagaal aad kullayba ku guuldarraysanayso tamartaada iyo xasiloonidaadana kaa dhaawacaya. intaas waxa dheer in qofka habkan kuu dhaliilaa uu kugu kalifi karo inaad u dhaqanto si aan ku habboonayn sumcadaada kadibna uu gaadho ujeedadiisii ahayd inuu ku niyad jabiyo ama jawigaaga ku ciyaaro. sidaas darteed iska indhatir si dhammaystiran. waa habka qura ee aad kaga guulaysan karto. xaaladaha kale ee kuwaas ka duwan waxa weeye in dhaliishu tahay mid saxan laakiin habka loo gudbiyay tahay mid xun sida in si qallafsan loo sheegay ama si jees ah. ujeedaduna marna fiican tahay marna xun tahay oo isbedbedelayso. xaaladan oo kale badanaa waxay ka dhex dhacdaa dadka isku dhow. tusaale ahaan waalidka qaar ka mid ah ayaa marka ay ubadkooda wax u sheegayaan si kulul ula hadla iyagoo dhaliishu sax tahay niyadooduna wanaagsan tahay. sidaas la mid ah gabadh ayaa ninkeeda rabta dabeecad xun oo uu leeyahay inuu iska bedelo laakiin habka ay u martay ayaa qallafsan taasoo keenaysa inuu ninkii ka dhaga adaygo maqalka taladeeda. haddaba markan oo kale qofka ku dhaliila ee kuu dhow waxaad u qiraysaa inuu ku saxsan yahay sidoo kalena aad soo dhaweynayso dhaliishiisa laakiin uu wax ka yar bedelo habka uu wax u dhaliilayo. intaas haddii aad samayso waxay muujinaysaa inaad tahay qof naftiisa ka adag waayo xaaladan oo kale waxa fudud qofku inuu dhaliisha diido wax sheegana qaadan waayo laakiin adigu taas maad samayn. xaalad kale ayaa iyana ah in qofku kuu soo jeediyo dhaliil saxan kadibna uu adeegsado wada xun niyadiisuna ay inta badan tahay mid xun. badanaa dhaliisha noocan ah waxa adeegsada dadka sameeya ama yaqaano waxaad samayso ama taqaano
laakiin aan u guulaysan sida aad adigu uga guulaysatay. Waxaa laga yaabaa inaad dadka la wadaagto aqoon gaar ah, isla markaana uu jiro qof yaqaana inta aad taqaano oo kale, laakiin ma soo gudbiyo mana helo qadarinta aad hesho mid la mid ah. sidaas darteed dantiisu waxa weeye inuu shaki geliyo awooddaada, sumcadaadana hoos u dhigo. inta badanna wuxuu raadiyaa inaad khalad gasho si uu fursaddaas uga faa'iidaysto. qofkan oo kale waxaad ula dhaqmi kartaa inaad ka faa'iidaysato dhaliishiisa oo isa saxdo maadaama ay dhaliil jirta tahay, laakiin aanad u jawaabin ee dusha ka daawato. xaaladaha kale ee dhaliishu u dhacdo waxa ka mid ah in qof kugu dhaliilo wax khaldan, laakiin uu kuu dhaliilo hab wanaagsan oo qurux badan, sidoo kale niyadiisuna tahay sixitaan iyo wanaag. sababta dhaliisha noocan ahi inta badan u dhacdaa waxa weeye in qofku ka haysto xog khaldan oo aanu si fiican u soo hubin, kadibna dhaliil kuu soo jeediyey isagoo isle waxa ka bedelo. xaaladdanna xalkeedu waxa weeye inaad qofka u caddayso khaladkiisa si deggan oo asluub leh. intaas ayaynu ka tilmaami karnaa wejiyada kala duwan ee dhaliishu ku timaado. haddii aynu xoogaa talooyin ah mawduuca ku soo afmeernana, waxaa jira dad si fudud u dareema markiiba khaladaadka jira iyo meesha ay ka jiraan. taasina waa arrin wanaagsan haddii looga faa'iidaysto si wanaagsan, laakiin dadka badankoodu si wanaagsan uma sameeyaan arrinkaas. waxaa laga yaabaa inay arkaan qof si wanaagsan wax u qabtay, laakiin khaladaad yaryari ka dhaceen, isla markiiba waxay dhaliil u soo jeediyaan qofka iyagoo aan sooba hadal qaadin wixii uu wanaajiyey oo dhan. tani inta badan waxay keentaa niyad jab, sidaas darteed ka fogow qaab dhaliilidda noocan ah. sidoo kale waxaa jira dad aan gebi ahaanba ammaanin marka uu qofku wax wanaagsan samaynayo, sababtoo ah wax dabiici ah ayay u arkaan xaaladdaas, laakiin marka uu qofku khalad yar sameeyo si degdeg ah u eedeeyey qofkaas. qofka noocan ahi wuxuu u muuqdaa qof jaanisgaad ah oo sugaya inaad khaldanto xitaa haddii aanu isagu isdareensanayn. dabeecaddanna waa mid laga wanaagsan yahay. sidoo kale ha noqonin qof marka qura ee uu hadlaa ay tahay maruu cid wax ka sheegayo. talada ugu dambaysa ee mawduuceennuna waxa weeye marka aad wax dhaliilayso, sheeg wanaagyada qofka aad ku aragtay, kadibna dhaliisha u sheeg si uu u aqbalo soo jeedintaada. aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum.